السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا ونكسن داوديال ميل كستو aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee maskaxmaal barnaamijka maskaxmaal toddobaadkan waxa marti ugu ah isla markaasina aan kaga hadli doonaa buugaagta uu qoray Maxamed Saalax Maare oo kamid ah qorayaasha daad yar ee ku nool Soomaaliya waxna in badan uu qoraalkiisu gaaray qeybo fara badan ee ka tirsan geega Soomaaliya toddobaadkan waxaan diradda saari doonaa buug la magac baxay mugdiga nolosha oo uu soo saaray qoraaga dhawaan isla markaasina ku soo bandhigay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxa idin la socodsiin doonaa anigu Cabdullaahi Xasan Cilmi ku soo dhawaada mar kale maskaxmaal waagaag saaxiibayaal mar kale kulan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo daawanaysaan markana barnaamijkii maskaxmaal ayaan guda galinaa marka hore waxaan soo dhaweynayaa qoraaga Maxamed Saalax Maare Maxamed marka hore ku soo dhawaaw barnaamijka maskaxmaal iyo Astaan TV bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam wa ba'da assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waan mahad celinayaa dhammaan bahda Astaan TV oo adigu ugu horeyso وانا دواهي واد مانسنتاhay waatahay Maxamed barnaamijkan aan guda galinaa su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinay toddobaadkan waxay tahay mugdiga nolosha waa buug aad adiga qortay qisooyin fara badan oo markaasi qabsaday hooyooyin Soomaaliyeed ee la xiriira tahriibka ayaa ka qortay haddaba maxaad ku dooratay magaca mugdiga nolosha wallahi ujeedka buugani ka hadlayo baa magacuna sal ku leeyahay marka aad wax qorayso oo aad bahda qalin maal kamid tahay waxyaabaha ugu horeyso laga baahan yahay waxa weeyaan marka hore inaad qorsheysato ujeedka aad wax ka rabto inaad ka qorto marka labaad waxa weeyaan jaldiga buugga ama kofarka buugga iyo magaca buugga iyo ujeedka aad ka hadlaysa in isla haadaan marka buuggu wuxuu ka hadlayaa laba ujeedo oo runtii mugdi ah oo ina haysta runtii kofarkiisa madow baanu ka dhignay ama mugdi magaciisana mugdiga noloshaan u bixinay marka ujeedkii buuggu ka hadlayay baa magacuna ku qotoma taas baan oran karaa waa gartay qoraaga inta badan wuxuu wax ka qoraa qisooyin saameyn ku leh haddaba arintan ay adiga aad wax ka qortay ee buugga ee tahriibka saameyn cankee ay kugu leedahay wallahi waxaan aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo damiir leh buuggan inuu saameyn ku yeelan doono sidoo bulshadii ka horeysay ee buuggan aanu geeyay ay saameyn ugu yeelatay aniga shakhsiyadeeda ay saameyn ugu yeelatay sababtuna ay tahay marka hooyo laga sheekeynayo dareenka waa laga wada siman yahay oo qof kasta hooyo dhashay dhibka hooyo ku dhacayna qof kasta uu dareemi karaya marka saameynta uu ku yeelan kara waxa weeyaan dhibkii hooyo ku dhacay buuggani ka sheekeynaya dhibtii hooyo ku dhacay qof kasta hooyo dhashay uu dareemi karaya xanuunka iyo dhibaatada hooyo danyar oo aan dhaqaale haysan waxba haysan marka ubadkeedii uu ka tahriibo dhibaatada ay la marto marka saameyn weyn buu runtii aniga igu yeeshay bulshadii aan soo bandhigayna saameyn buu ku yeeshay waa gartay qof adiga ku dhow oo tahriibay oo arintan aad wax badan marka kala sheekeysatay miyuu jiraa guri Soomaaliyeed oo aan tahriibtu saameyn ma jiro horta ama hay dhawaado ama hay fogaado laakiin Soomaali oo dhan baa dhibaatada noocan ay gaadhay dad badan oo asxaab ahayn dad badan oo aan family nahay dad badan oo aan garanayn oo kadib la sheegay markay tahriibeen ayaa buuxa social media barta Facebook aan ku leeyahay baa ugu badan dadka aan kala hadlo qolyahan tahriibay iyo dhibaatooyinka ay maraan iyo waxyaabaha noocaas marka waa kala sheekaystay laakiin iyaga ma rabin inaan ka qoro waayo nin tahriibay waa nin isagu dhibaato u bareeray marka loo baahna inaad isaga ka sheekayso laakiin waxa loo baahan yahay dhibaatadu cidda ay ku dhacday oo ah hooyadii isaga dhashay ayaan buuggan ujeedkii kuwa diiradda ku saaray sida daraadeed baan aanan xoog u saarin inaan isaga intaan la hadlo aan ku dhaho dhibaato noocee kugu dhacday sidee waxaan ku saameysay waxyaabo noocaas waxaan diiradda saaray xoog saaray hooyadii danyarta ahayd aan waxba haysan wiilkeedii tahriibay dib noocee la martay markuu wiilkeedu ninkan aynu naqaano magafaha ilaahay baan wax ka finay uu gacanta u galay intii uu badda sii socday
ilaa hadda uu Yurub joogo dhibaato noocay la martay ujeedkaas baa xooga saaray dadka markaad la kulanto tahriibeen oo kaleeto ama ay kaaga sheekeeyaan ama aad kala sheekaysato sidee ula tacaali jirtay والله تطبق صورته كقرن بوجا تطبقه يعني لكل ما ويان اللي هو يعني لكل ما إياه قبل قصة أنا كل عادي يدي يصادرتي برت فيسبوك عن كل يصادرتي مركا هو يكست مركا لكل ما يسوى لبعتوين كمركي كاجش كين يسوى أي لما مرتويل كذا من قبل ده iyo sidii ula tacaashay iyo xanuunka ay u mudatay sidii wiilkeeda ay uga samata bixin lahayd dhibaatada qaarkoodna ay dadaal dheer u galeen inay ubadkoodu soo noqdaan oo ay soo celiyaan laakiin ay u suurtageli weyd sadaradeed hooyooyin badan baan la kulmay oo aan dhibtan kala sheekaystay marka aniga laftayda waxay ugu abuurtay dareen gooniya runtii oo damqasho leh oo xanuun leh oo runtii aan qalbigayga ka go'i doonin qaarkood markii ii sheekeynayeen way ooyeen way ilmeynayeen qaarkood markay ii sheekeynayeen xataa way awoodi waayeen halkan ay sii socdaan inay hore iga sii wadaan oo sheekada haaf ay ugu joojiyeen marka dhibaato noocaas ayay jirta waa gartay bal waxaad iga warantaa maansooyin oo buugga aad ku soo dartay baa jira Google dhigna markaasi aad uga dhigtay xumaa dhunyaal xumaa yaa tiriyay maansadaasi maansada waxa la yiraahdaa xabsi tahriib magaceeda dhunyaal ereyga ku bilaabanaysa ana waa Soomaali oo waa tahriib waa Carabi Soomaali waxa la yiraahdaa laba erey baa loo isticmaalaa oo tahriib ugu dhow waxa weeyaan suudaal iyo dhunyaal labada erey baa la isticmaalaa marka maansada ana sameeyay 2014 maansada sameeyay waxay ka sheekeynaysaa hooyo dan yara oo aan waxba haysan oo hal wiil dhashay qisada bay ku timi maasadan hooyo dan yara oo waxba haysan oo hal wiil dhashay wiilkeedina uu ka tahriibay iyadoo waxba haysan iyadoo dhaqaale gacanta ku hayn iyadoo waxba awoodi kareen xataa inay soo hesho inta la soo hadlay lagu yiri lacag $2,000 waa inaad soo dirtaa ujeedka noocaas bay maansadan ka sheekeynaysaa anigaana sameeyay waa gartay maansada marka tahriibka aad ugu tala gashay inaad uga hadasho ereyada maansada erayadeeda waxa ku jira hooyadii oo hadlaysa saan ku sheegay waxay tiri xumaa dhunyaal xumaa waayuhu xagal gaabana xarfaha sanaduhu yara xilkiisa qofaad sidood xumaanta ka dhowr lahayd xajiinta ka waab lahayd markuu ku xiqdiyo xumaa xaqay hooyadu lahayd xisaabtay ka mudnayd qof aan garanayn xumaa markuu curadkii xulnaa xulmeyn jirtay ee jeclayd tahriibta xiisado xumaa xabuu baan iibiyaa xawaashkana waan gadaa cadceedaan xiiqayaa xabeebe afkii dartaa xubnihii socod way gabeen xabsay ku jirtaa naftani haddana xilkii hooyanimo xasano wali waan sidaa magafe adigaygu xidhay xabsiga adigay dhex dhigay xabadda adigaygu ganay hurdada adigayga xaday adaa fikir xirxiray xalaal baan ku dhalay xumida wiilkaygiyo ma hayo xoolo iyo lacag xamaal ma aqaan anigu xabaasha hadaad gashana xaq weeyaan geeruduye miyaan ku soo xadaa wiilkan ku xasili jiray hurdada ku xulmeyn jiraa xujiyo fikrigu dilo taladu way iga xuntee ma xoolaan soo dhacaa oo xaaraan baan cunaa sidaan yeelaa xigtooy xagaan aadaa hadeer ahay dhunyaal xumaa xariir baadii ahayd nuurkii xubnahaad ahayd hantiyo xoolaad ahayd xidiga bulshadaad ahayd xadhiga nacabkaad ahayd xulkii ubadkaad ahayd indhaha kuu xiisi jiray xulbaad hooye ii ahayd maxaad u xigsatay tahriib maxaa dhibta kuu xadiday xalaal baan ku dhalay xumida wiilkaygiyo asoo jeedkeedu intaas buu ereeyay waa tahay aad u mahadsan tahay maxamed saalax mare weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa maasadaas aan dib ugu soo laabano waxay ka qayb barnaamijka maskaxmaal toddobaadkan martiga aad noogu tahay su'aalahan dib ugu soo laabanayna qisooyinka waxaad inta badan ka soo aruurisay hooyooyinka ama maamooyinka maxaad ku dooratay hooyooyinka kaliya in aad markaasi arintan aad ka wareysato ama aad ka xoogaal ogaalsato
maxaad u wareysan weysay aabayaasho iyana markaas xogaal fara badan u ah arrimaha tahriibka maadaama qofka ugu badan ee saameynaysa isaguna uu ka qayb noqonayo lacagihii ciyaalka ama caruurta tahriibtay ama gafuwa uu qabsaday lagu soo deelin lahaa qofka raadinaya dhexda u xiranayeen oo isagu uu yahay maxaad u wareysan weysay oo fursad u sii weysay maxaadse ku dooratay inaad hooyooyinka kaliya wareysato wallaahi waa su-aal fiican aabe iyo hooyo waa laba waalid laakiin sida nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam uu inoo tilmaamay way kala xaq mudan yihiin saddex goor baa hooyadu ka xaq mudan tahay aabaha marka afraad baa isagu xaq leeyahay waa sida diinteena suuban iyo nabigeena suuban uu inoo tilmaamay wayna ka qalbi jilicsan tahay way ka walwal badan tahay way ka walbahaar xun tahay way kaga xanuun badan tahay wiilkeedii inuu tahriibay aabayaasha Soomaaliyeed way wada fiican yihiin laakiin aabayaal qaar waxa jira aan ka damqanba wiilkiisu markuu tahriibo aan dhibaato u arag laakiin hooyo kasta oo Soomaaliyeed dhibtu way gaadhay oo way ka damqatay dhibaataduna iyadun bay ku dhacdaa iyadun baa dhibaatada ku dhacdaa sababtoo ah saan idin sheegay way ka qalbi jilicsan tahay way ka walwal badan tahay way ka walbahaar xun tahay iyadu ta kale dhibta way u nugushahay hooyadu dhibta aad bay ugu nugushahay marka sababtaasaa keentay inaan hooyo isku dayo inaan ka waro hooyo oo dhanna maaha hooyooyinka danyarta ah ayaan waxba haysan ee duruufta waqtigu haysto ayaan qisooyinkan ka ururiyay hooyo oo kale hooyo dhan ma waayo hooyooyinku iyagoo isku hooyo ah isku qalbi ah haddana waa isjeeb dhaamaan laga yaabo jeebkiisa qofka qaar hooyooyinka qaar u saamaxaya in wiilkeeda aan waqti badanba ku qaadan inuu ninka xun uu gacanta ku dhigo oo maalinta la qabso maalinta ku xigta loo dirayo laakiin ba ka waran hooyo isagoo xitaa hooyada aan $3 maalintii awoodi karin inay hesho $3,000 ama $5,000 khasab lagaga dhigayo dhibaatada noocaas ayaa buugan ka sheekan saasana u doortay inaan hooyo ka sheekeeyo waa gartay ereyga sudaal oo aan filayo inaad la jeedo tahriib waxaan filayaa inuu yahay eran markaasi kamid ah ereyada ku cusub shacabka Soomaaliyeed maskaxdooda ama magacaas maankooda ku cusub haddaba ereygaas halkee baad ka soo xigatay ereyga sudaal Soomaali kuma cusba laakiin Soomaalidan dalbu ku cusub yahay waayo macnihiisu Soomaali ba weeyaan marka hadii Soomaaliga indhaano Soomaaligu ku cusub yahay waxay noqonaysaa meel kale in wax ka keensanay Soomaalida dambe oo dhalinyarada oo anigu kamid ahay uu ku cusub yahay lafteedu dhawaan baan bartay ereyga maalintii aan buugan ku guda jiray baan bartay buugan markaan horta qoriyay dhowr ujeedaan raadinayay kaliya ma ahayn dhibaato inaan raadinayay waxaan raadinayay waxay ahayd horta yahay tahriib maxaa la yiraahdaa horta dhibaato noocee ah ayaa tahriibtu uu dadka ku beeraa sababo noocee ah keeni kara in qofku tahriibo horta oo ninkan dhalinyarada ah sababaha ugu badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahriibaan ku keen weligeed waxay ahaan jirtay reer guura oo way guuri jirtay oo way dhunyaali jirtay ama way suudaali jirtay ama way tahriibi jirtay qarniyo ka qarniyo intii Soomaalidu ka bilaabantay weligeed Soomaalidu wax iska ahayd dad socda ay ahaayeen laakiin socodkeenaasi uu koobnaa markii hore waxa laga yaabaa ninka wuxuu ka tagayaa Shabeellada Hoose wuxuu tagayaa Burco wuxuu ka imanayaa Saylaca wuxuu imanayaa Baydhabo saaw baynu guuri jirnay laakiin meelaha ugu dhow ee tagtigi jirnay waxa laga yaabaa Yamantan iyo meelaha dhow ee Carabaha inay ahaan jireen markaana shaqo iyo waxyaabo noocaas ganacsi iyo waxyaabo noocaas dadku kalifi jireen tagaan marka waxyaabaha aan diiradda saarayay markaan buug ururnay waxa kamid ah waxyaabaha tahriibta horta xaw ka yimid Soomaali xaw ka soo galay marka Soomaali xagu ka soo galay markaan raadinayay ayaa la igu yiri suudaal iyo dhunyaal ayaa la oran jiray waqtigii hore oo tahriib macnaheedu waa Carabi Soomaali ahaan markaynu ka dhigno waxa weeye suudaal ama dhunyaal oo macnaheedu hebel uu dhunyaalay hebel wuxuu tagay meel ka fiican meel uu doonayo inuu nolol ka fiican ku galo halkan uu joogo ay macnaheedu ugu dhow yahay marka saasan ereyga waxaana ka soo xigtay
rag runtii Soomaaliga aad ugu taxalluqa oo aniga qoto dheer oo waayeel ah ayaan ka soo maanguuriyay oo ay faa'iideeyeen. waa gartay maxamed bal waxaad iga warantaa su'aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay adiga shakhsiyadaada buuggan aad qortay oo tahriibka ka sheekeynayo weli miyaad tahriibtay horta? maya ma tahriibin kumana fikirin inaan tahriibo haddana ma rabo inaan ku fikiro. sababtu waxay tahay waddankaaga horta meel kuu sharaf dhaantaa ma jirto. waa jirtay waddanku mar dhibaato ka jirtay ilaa hadda waxyaabo khaldan waa jiraan laakiin waxyaabo badan oo saxan baa waxyaabihii khaldanaa ka badan hadda. waddanka mar uu bilaa sharci ahaa uu bilaa xeer ahaa qabyaalad wax kasta lagu dhaqmi jiray cadaalad darro waa jirtay. ilaa hadda dhibaatooyinka waddanka ka jiraan kuu sheegaya oo dhalinyarada ku kalifay inay tahriibaan. waxaynu ku noolahay waddan dhan oo shaqadiisii iyo xorriyadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wixiisii oo dhan ay 4 nin ku xidhan yihiin. tusaale ahaan inanka dhalinyarada ah waxay ku xidhan tahay inuu shaqo helaa inuu u tago reerkiisa xildhibaanka reerkiisa wasiirka reerkiisa iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo ra'iisul wasaaraha ah. 4 nin bay waxay ku xidhan tahay shaqadii waddanka lacagtii waddanka xorriyadii waddanka iyo waddankii oo dhan ba 4 nin bay ku xidhan tahay. reer kastana 2 nin baa ugu xidhan iyo 2 nin waddanka u sareeya oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ah. reer kastana waxa ugu sareeya xildhibaankooda iyo wasiirkooda. dhibaato noocaas ah waddanka ka jirta taas ku kala fiiri ninka dhalinyarada ninka xildhibaankii ma wada awoodo reerkiisa oo inuu shaqo siiyo. ninka wasiirkiina ma wada awoodo reerkiisa oo inuu shaqo siiyo. sababta hadii ninka xildhibaanku reerkiisa oo dhan shaqo siinayo shaqooyin may xildhibaanadii kala reerahoodii may ma 12 milyan oo Soomaali ah shaqo loo siin kara ma weeyaan. marka dhibaatooyinka waddanka ka jira waxyaabahaas ka mid ah ee ku kalifaya dhalinyaradu inay tahriibaan. anu kuma fikirin ma tahriibin iskuma dayin haddana ma doonayo inaan ku fikiro. waa gartay qeybaha ugu horeeya ee buuggan aad qortay ee mugdiga nolosha waxaa inta badan kaga hadashay tahriibka. waxaa ka mid ah waxyaabaha soo daliisatay shaqo la'aan inuu tahriibka markaasi ay sababto. sidoo kale waxaad sheegtay in ixtiraam loo hayo qurba joogta iyo sharciyada ajaanibta. haddaba sababahaasi baaritaano miyaad ku sameysay sidee ku ogaatay? wallaahi taas qof kasta waa ka dharagsan yahay waxyaabaha qofka ku kalifaya inuu tago. horta dhalinyarada Soomaaliyeed 90% dhibaatada haysata waxa weeyaan waa shaqo la'aan. hadda dhibta ina haysata waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed wada siyaasiyiin bay noqdeen. social media siyaasadiisa ha ku gudbiyo ama intuu video iska soo duubo ha gudbiyo ama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka intuu caayo video iska soo duubo. dhibaatada keenaysa inay dhalinyaradu siyaasad ku mashquulaan oo ama la yiraahdo hebel baa wax sameeyay hebel baa wax musuq maasuqay hebel baa waxyaabaha noocaas ku kalifaya waxa weeyaan dhalinyarada shaqo la'aan baa haysa. haddii qofku uu shaqo haysto camal buu heli lahaa wuxuu ku mashquul heli lahaa ugu yaraan 4 saacadood 8 saacadood maalintii inuu shaqeeyo inta kale iska hurdo inta kale asxaabtiisa iska caawin waqtiba muu heleen. laakiin hadda ninkii aqoonta lahaa masterta waddanka ku diyaariyay baa gurigiisa iska fadhiya 24 saacadood. hadduu rabo inuu shaqo tagana 4 nin waa inuu helaa 4 nin sidii lagu heli lahaana waa adag tahay. dhibaatada noocaas haysata dhibaatada noocaas ina haysata waxa ka mid ah ixtiraam loo hayo qurba joogta. nin xuna waddankiisa 5 sano ka hor ka tahriibay ama bariye iyo deyn lagu qaaday oo intuu baasaboorku soo qaatay shahaado yar ku leeyimay ayaa kaaga qiimo badnaanaya ninkaagi masterta waddanka ku bartay oo xilki lagu sharfay oo waxa weeyaan adoo shaqo maanta u taagan baa la oranaya hebel oo Mareykanka yimi baa halka tooga soo geliya shaqo siiya waxbuu soo bartay. waxaa laga yaabaa ninkaasi 8 saacadoodna inuu ilmo yar xaarka ka meeli jiray 8 saacadood oo kalena inuu iskuul boorina ku jiri jiray baa laga yaabaa. kaasaa ka qiimo badnaanaya marka kaasaa laga ixtiraamaya. waxa kaliya la ixtiraamaya xawayaan baasaboor buu sitaa iyo waddankaas uu ka yimi oo shahaado waddankaas uu sitaa. dhibaatooyinka waddanka dhalinyarada ku kalifay inay tahriibaan ay ka mid tahay. waan daraasadeeyay oo waxaan Facebook ka raadiyay aan dhahay website-yada ka raadiyay waxaan dad toos u wareystayba waa isugu jiraan. marka waana ku sheegay oo buugu kama sheekeynay hooyada kaliya. marka hore maxaa tahriibka keena sababaha keena waa maxay tahriib laftiisu muxuu yahay dhibaatooyinka ku kalifaya ninka dhalinyarada inuu tahriibo iyo gogolligi
kadib baa buugga iyo qisooyinkiisii aad u gudbaysaa laakiin horta tahriibkaad wax ka ogaanaysaa diyaat waa gartay xilliyada dambe tahriibka waxay markaasi ku badnaa gobolada waqooyi oo amni ahaan ka wanaagsan gobolada koonfureed qisooyinka ugu badan ee buugga aad qortana waxaa inta badan ee markaasi ka dhaceen gobolada waqooyi marka laga reebo qisadii hooyo Xaliima haddaba taasi maxaa sababay aragtidaada waxa sababay anigu boora baan ku noolahay Soomaaliland baan ku noolahay markaan boora ku noolahay waqtigu ima saamaxay intaan Muqdisho imaado inaan hooyo wareysto sababtoo nin arday baan ahay kharash iyo waqti iyo waxa soo dhan baxay hooyo meel joogto waa hooyo waa isku dareen hooyinka Soomaaliyeed waxba kuma kala duwana waa isku qalbi waa isku dareen waa isku wax kasta waa ka siman sadraade waxaan damcay waxaan shirto dabaqo hataa raadiso حتى قروة كجرته هو يقروة كجرته كسوق قرن قصة waxaan sir hooyo todoba hooyo hadaad hesho sababta dhibaatada qoraaga haysato waxweeyaan hadaa buugaagi bato laba dhibaato ku imanaysa koow buugaagi lama akhriyo oo Soomaalida wuxuu qoraysaa Soomaalida wax badan ma akhriyo talabaad kharash badan baa lagu oranayaa daabacaadiisa iyo wixiisi kharashkii badnaana kama bixi kartid adigu sadraad waxa fiican in yaro nuxur ah oo kooban oo ujeedkii aad doonaysay ka hadlaysa inaad keento nabadgeliyo intii aad bulshada u soo bandhigto hadii la akhrisanayo hadaan la akhrisan adiga waajibkaagii ilaahay ku waajibkaaga dhigay waa gudatay marka todobada hooyo ayaan ka ururiyay waxaan aaminsanahay hooyada Hargeysa joogta iyo hooyada Muqdisho joogta inaan wax ku kala duwaneen waa isku af isku dhaqan waa isku diin waa isku dal marka sidaa daraadeed waana isku dareen marka hooyada Hargeysa joogta waxay ka turjumaysaa hooyada Muqdisho joogta hooyada Gaalkacyo joogta waxay ka turjumaysaa hooyada Boorama joogta marka sida daraadeed baan anigu halka uga qoray aan u yiminay meel kasta hooyada joogtaana ugu yiminay magaalada joogto intaas oo magaalo oo buuga ku qoran ana u tagay aadiyad waa gartay qisada hooyo Raxmo aad bay u xanuun badneed markii Samiiro ay ku soo gaarsiisay hadaba dareenkeeda sidoo ahaa adiga sidee ula falgashay Samiiro qisadaas markii ku soo gaarsiisay buuga markaan qorayay baan waxaan u sameeyay wax la hordhac ama international wax la yiraahdo hordhaca waxaan ugu sameeynay barta social media aan ku leeyahay Facebook la yiraahdo waxaan ku soo share gareynay ujeedka buuga wuxuu ka hadlayo iyo xogaa googoosa oo laba saddex qiso oo googoosan in yar ka soo qaataan ka soo dhigay tan eegay marka waxay ahayd maadaama ujeedo ugu ay tahay oo aynu baranay in laga sheekeeyo tahriibta laakiin ay tahay markii ugu horeysay hooyo dan yar oo wiilgeedu tahriib wax laga qoro sidee dadku waxaan u qiimeynayaan baan eegay marka hadii aan waxaan u arkay inay u baahan yihiin dadku sababtoo ah waxa ka dareemaysaa falcelinta ay dadku ugu soo celiyaan ama adig toos ah kula soo hadleen ama meesha yar commentiga lagu reebo wax kugu qoreen halkaas aad ka ogaanaysaa dadku say ugu baahan yihiin wax markan qisadan saa ugu soo share gareeyay Facebook-gayga aan laba saddex goor ku soo qoray ayaa gabadhan ila soo hadashay marka waxay u tiri Samiira la yiraahdaa Sweden baan deganahay wadanka 4 sano 2 sano 3 sano meelaha ka hor baan ka tahriibay waxaan rabaa qiso igu dhacday oo hooyaday aniga dartay ay u dhibaatootay inaan ku soo diro dad badan oo nooca ay yirin waa jireen laakiin waxaan ka duuliyay waxay ahayd qofku wax maal awaal ku soo qori kara mid kale ma aqoonsan kartid inay waxaan runtahay inay beenta ta kale inay wax kaaga soo noqon karaan ma ogaan kartid sababtoo hooyo markaan wareysanayo waa inaan weydiiyo hooyo raali ma ka tahay inaan bulshada u bandhigo hooyo markaan wareysanayo waa inaan weydiiyo hooyo raali ma ka tahay intaas oo Soomaali aan gaarsiin karayo inaan gaarsiiyo hooyo markaan wax ku qoreyso waa inaan weydiisaa raali ma ka tahay magacaaga iyo magaalada joogtay inaan sheego inta hadii lagu ogolaado waa baahin kartaa laakiin waxa laga yaabaa aniga oo aan hooyaday ogolaan in waxa laga sheekay inaan ku soo diro hadhow aniga ay dhibaato igu soo noqoto lama oranayo hebel baa u diray laakiin waxa la dhayaa adaa qoraada dadkii gaarsiiyay waa sabab baa u gaarsiisay taasan ka cararay dad badan oo ilaa 12 qiso ii soo diray waa jiraan laakiin waxaan u arkay qisadan inay tahay ta ugu xanuunka badan qisooyinka la soo diray iyo tas ugu saameynta badan sida daraadeed baan barnaamijka aan ugu soo diray qisada hooyo Raxmo buugayna ka akhrisan doonaan hadii u baahan yihiin daawadayaasha Astaan TV waa tahay aad u mahadsantahay gabagabadii aan marayna markan ujeedooyinka ugu weyn ee buuggan aad ka qortay ujeedooyinka aad ka leedmeenaa wacyigelin bay ka aad mise adiga dangare ama dangaara ka lahayd
maya dan gaar aan ka leeyahay ma jirin laba ujeedo aan baan buuga u qoray waxaan u qoray ujeedo saddex ujeedaan buuga u qoray saddexdaa ujeedo waxay yihiin inaan guto waajibaadkaygii ilaahay ii igmaday maadaama ilaahay uu intaasoo dhalinyaro oo iga mid dhigay inaan ka mid noqdo dhalinyarada hibada u leh hal abuurka iyo wax curinta waajib baa markay saaran in waxan aan ummadda u faa'iideeyo waajibka ujeedka koowaad aan u qoray ujeedka labaad aan u qoray waxa weeyaan inaan u hiiliyo hooyo kasta oo danyar oo aan waxba haysan inaan ugu hiiliyo buugaygan ujeedka saddexaad aan u qoray waxa weeyaan inaan dhalinyarada tuso dhibaatada inay hooyada ku dhacdo inaan dhalinyarada u iftiimiyo inta aanay iyagu iska fikirin ama inta aanay ka fikirin inay tahriibaan inay horta noloshooda iyo waxa iyaga hooyooyinkood mudan doonaan ay ka fikiraan ujeedkaas saddexdaa ujeed baan buuga ka lahaa waa tahay tahriibku ma wada ahaa keligii qisooyinkan oo kale balse waxaa jira tahriib ku guuleystay in nolosha iyo tan qoyskaba horumariyaan oo lagu guuleysto macnaha tahriibkaas qofka tahriib uu ku guuleysto nolosha qoyskiisa iyo tan familkiisaba uu horumariyo haddaba maxay usoo bandhigi weysay arrimaha oo kaleeto oo dadka tahriibayana markaasi ku guuleystay ama noloshooda guusha gaartay taas muhiim ima ahayn aniga sababtoo haddaan dhaho waa lagu guuleystay tahriib oo reerkoodii buu horumariyay reerkoodii buu qaaday xaggaas u tagay dad badan baa ku dhiiranaya inay tagaan oo kale marka ani taa muhiimadeyda ma ahayn inaan tahriib waa wax xun inaan wax fiican u bedelo ma ahayn muhiimkaygu inaan buug u qoro sababtoo haddaan wax xun rabo inaan ka sheekeeyo waxyaabo badan oo xunxun oo buuxaa jira oo aan ka sheekeyn karo wanaag ka dhigi karo laakiin ujeedkaygu wuxuu ahaa xataa kaa guuleystay hooyadii dhibaato u geystay markiisii hore dhibaatada u geystay waxa weeyaan hal maalin ay ka naxdo noloshiisa inta ka dhiman haddii uu wanaajiyo baad sheegaysaa hadduu adduunyada meesha ugu dambeysay geeyo isla mid ma aha halkaa maalin uu ka naxiyey baa u dhibaataa iyada marka ujeedkaygu wuxuu ahaa xataa hadduu guuleystay maalin hooyadii ka naxday waa jirtaa maalin ay hurdo la-aan iyada darteed isaga dartii usoo gaadhay waa jirtaa taasaan doonaya inaan dhalinyarada tuso laakiin inaan dhaho waa guuleystay hebel oo uu tegey ma ahayn ujeedkayga waa gartay buuggan waa buuggii afraad ee aada qorto haddaba buugaagta kale ee aada qortay maxay ahaayeen maxayse ka hadlayeen inoo soo koob waayahay intaana taa dhexgelin waxaan rabaa inaan ogeysiiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan inta muqdisho joogta buugga wuxuu yaallaa maktabadda saylac isgoyska shaqaalaha ku taala ciddii u baahan halkaasay ka doonan kartaa maktabadaasaan dhigay sababto anigu muqdisho ma sii joogay oo dhowaan waa ka tegaya insha allah marka su-aasha ay weydiisay buugaagta kale aada qortay afar buug weeyaan qoraalka 2012 baan bilaabay waxaa la yiraahdaa buugga ugu horeeya mugdi waxaa la yiraahdaa gabar iyo guur oo wuxuu ka sheekeynaya haweenka iyo waxyaabaha waxqabadka haweenka iyo guurka iyo isbedelka guurka ku yimi iyo guurkii hore sharaftu lahaa ka labaad suugaanteyda iyo sheeko faneedyo buu ahaa wuxuu waxaa la yiraahdaa hogol oo suugaanteyda aan ku qoray ka saddexaad isla sheeko faneedyo iyo wuxuu ka sheekeynaya suugaan iyo waxyaabo noocaasa naqsoor baa la yiraahdaa isna 2015 buu soo baxay kan hadda ugu dambeeya mugdiga nolosha la yiraahdaa 2017 bishii saddexaad ayuu soo baxay marka afarteeda buug waa kuwa waaya iminka hiigsigaaga ama qorshahaaga muxuu yahay hiigsigayga alla horta igu guuleeyo hiigsi badan oo nolosha qof kasta waa leeyahay waxaan hiigsanaynaa in aan ugu yaraan guto waajibaadkii ilaahay waajibkayga dhigay inaan ummadan maskaxdeyda caqligayga cududeyda iyo tamarteyda baan ugu faa'iideeyay inaan waajibkaa guto unbaa igu horeeya waajibka kale waxa weeyaan waalidkay inaan xaqoodii intii aan gudi kara aan gudo waalid xaqii lama gudi karo laakiin intii aan gudi kara inaan gudo higsiga aan leeyahay waxa weeyaan inaan noqdo qof ummadda Soomaaliyeed wax badan u faa'iideeyay haddii Allah awood leh uu idmo intaasun baan odhan karaa qof aakhiraya adduun guuleystay inaan noqdo insha Allah aad iyo aad baad mahadsantahay maxamed saalax maare qoraaga buugga mugdiga nolosha oo toddobaadkan marti ugu ah barnaamijka maskax maal oo aad ka daawaneyseen telefishinka Astaan TV saaxiibayaal guud ahaan toddobaadkan waxaan jeclahay intaas inaan ku hakino barnaamijkii qiimaha lahaa ee maskax maal barnaamijka xigintaan ku kulmi doono waa bahdii oo isku duuban oo idin kaga tagaya horumar iyo barwaaqo insha Allah